horta sheekadan kala maana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino khiyaaray horta waan idin salaamay akhyaar madib dhibdhiitii ka taliyaasha la eray gobolku akhyaar ma ka argo hayo laakiin salaanta koo qaadni ariya haddii akhyaaru jirto shacabkan masaakiinta oo qabyaaladii isku dilahay kala xalli lahaayeene shib naga dheh warwarka ha iga dhexgelinina gabayaan 2 sano u dulqaadanaya baan idiin marinayaa ilaahay sarreeyo waxaad nagu samaynayso annaga asal iyo baaris kale sababahoodiiye dambiyadii horan suubsanaa qoorta noo surane aniguna ma saadaali jirin hawl siyaasadahe hase ila saxnaatee midaan sanadkan taageeray 3 tilaabo mid bay marin ka seegtaaye hadday saa ku sii socoto oon madaxdu seetayna Soomaalidu waxay sugahayeen looma soo sido allow sacabadan hoorsadiyo curinta suugaanta iyo gabayadan saari jiray maanta nugu saacid oo surunka guusheenayaan madaxdu seeraynin allow ka aqbal war ilaahay baa ka ogniyo waxaad sumayso tubaha qaranku tira badana warnimayo qaran iyo qabiil isma qabtaan afar inu saartaan afar inu stawalka bedelahe ummad yahay qabiilkiyo qarannimadu waa laba aan isqaadi karinoon weligood isqabaanayn waa qora dabliya gaaso mini aan la kala qarin ayaagays qarxinaaye war qabiil iyo shabaabad kala aqoonlaadiin waxa wax qarxiyo waa shabaab warwarkaan naga dhex gelinina inaysan isqaban waa ogna annaguba qaran iyo qabiile waxaan la yaabana ciidankii xoogga dalka ee ka soo gadooday shabeellada dhexe waxaa loo diray wasiiro iyo saraakiil isku beel ah kadibna guddigii ciidanku la baxay iyo madaxdaasi markay wada hadlayeen ciidankii waxay yidhaahdeen ma qaran baad ka socotaan mase erge qabiilaad tihiin su'aashaasna jawaabteedii waa ku adkaata mas-uuliintii marka aniga waxaa ila qumanayd ciidankaas in madaxweynuhu u tago maadaama taliyaha guud ee ciidamada uu yahay ama wasiirka gaashaandhigu u tago ama taliyaha xoogga dalku u tago war amay dawladdu u malayday in ciidamada meesha jooga ay hal qabiil yihiin aryaadhaha anigu waxaan dhihi lahay qarannimo iyo qabiil inaysan isqabeen waa ognahaye qarannimiya heer qaabiil isma qabtaan kala qaad qarannimiyo heer qaabiil isma qabtaan kala qaad saraakiisha meesha aad waxa kamid ah taliyaha ciidanka booliska gobolka Banaadir Saadiq John ciidanka markay arkeen waa caroodeen baa la yiri waana harareeyeen baa la yiri waxayna dhaheen qoriyii markuu xasilinta uu sheeganay naga qaatay ayaan ka rabnaa hadda waxa la yiri wasiirka amniga soo dumeentay nimayo waxa la yaabay sargaal u hadlay ciidamada wuxuu yiri annagoo 9 bilood mushaar aan arag waan soo marnay difaacana kama ayna bixi jirin laakiin maanta waxaan u adkaysan weynay garaamkii xataa weynay war ma wuxuu yiri waa markii ugu horeysay 27 sano kadib aan garaamka weyno waa markii ugu horeysay ee dawladda Soomaaliyeed ay ciidamada qalabka sida siiso lacag dhan 89 milyan oo dollar 89 milyan haddii ciidanka ku baxday shacabkan shabaab ugaar uma noqdeen ee intay ka baxda lacagtu war anigu waxaan dhihi lahay haddaan ciidamada dalkeenna mushaar ciidasiinahayn cadaawaha soo socdee dad cunaya naga celaa wariya gurya iritiyoona dhagaashib ee waan yaala bulud buruuflika dareerana may kala sheego haytada war mukayfka iskugu imaanana baa leeyahay xalku xumaado maaday isaaqo ma buruftiyaad haddana bilowda war anu waxa la sheegnaa in cadaan dhageysto oo la wareysanayo wuxuu yiri cabashada ciidamada iyo difaacyada laga soo baxay sababtu waxa weeye dadkii tira koobka ciidanka sameynayay afgooye iyo jawhar bay dhaafi waayeen askartana difaacyadaha ka soo bixinina taliyayaashooda ku yiri sidaasay ku dhacday ciidanku in xuquuqdoodu daahdo oo ay difaacyada ka soo baxaan laakiin waxaan ku talinayaa buu yiri ciidanku inay degdeg ugu laabtaan difaacyadooda si aan wadooyinka iyo xarumahoodii shabaab miino u gelin dawladana waxaan kula talinayaa in degdeg looga daba tago oo xuquuqdooda looga daba geeyo horta jenaraal indhacada waa ku saxnay warkuu yiri laakiin wuxuu ilowsan yahay kuminin qaaday keenima kamana amarmo kiilahay kuminin qaaday keenima kamana amarmo kiilahay warnimayow jin baa yaabay kadib markuu galay nin siyaasi Soomaaliyeed
laakiin si degdega ayuu uga soo baxay markii la weydiiyey maxaa uga baxday jinnigu wuxuu yidhi ninkan waa ku wareeray subaxdii waxbuu xadayaa duhurkiina masaajidkuu ku jiraa xafiiskiisa qaybta hoose khamraa ku jirta qaybta sarena kitaab baa u saaran xaaskiisu waa xijaaban tahay wuxuuna 24 saac ka daba hortayaa naaga qaaqaawan maalintii oo dhan tusbax buu sitaa habeenkiina baashaal buu ku jiraa dadka xafiiskiisa ugu yimaado qofna run u sheegi maayo kalama taqaanid cadowgiisa iyo saaxiibkiisa qof walba waa salaamaya jinnigiioo yaaban baa wuxuu hadalkii ku soo koobay yaabaya ninkaan maanigaa ku jira mise asagaa igu jira waroboodin may baara jartay jiirtaya haraar war intaa gabay buu ku daray jinku saaxiib dibnaha saaranoon saab ka jirin hoose iyo sulunsulxayn baa taqaan goor la seexdaba waryaa hoy siyaasow bulshada maasida u dhan waryaadhahen wasiirkii ganacsiga maxamed xayir maareeye war lala yaabo oo dhagahaygana aanan maqli karayn ayaa laga sheegay baa layidhi dad badan buu tahriibiyey lacag badanna wuu ka aruuriyey ayaa la yidhi war maareeye ma maran yahay dawladduna ma keenaysa asagana ma tahriibina war wasiir maareeye wuxuu yidhi ayaantan saxaafad baa soo baaxday lacag lagu siiyo dacaayadda dawladda war saxaafaddaa gar daran sababtoo ah wasiir maareeye oomada helayso uu burca ka soo raro xamar canshuur la'aanta ku soo geliya ayay sheegtaa war beyle horta cashuurta muxuu ka qaadi waaye war waa ka bootiyey maareeyena waa kii yidhi beyle wasiir ka fiicani ma jiro war adeero ma sidaasaa idin rabbi ugu baryaysaa afwax cuniyow xishow afwax cuniyow xishow waxaa kaloo hore loo yidhi majaa aabeesa meel kaaley ka muulax leeyihiin war golaha shacabka waxay yidhaahdeen kalfadhiga shanaad wuxuu furmayaa 27 bishan war ma golaha shacabkaa furmaya mase golaha safka war isku hirinaado maalnoo dhaafo jididhalay noo hirifadeena war labada sanoo soo socod waxaan ka baqayaa in lagu dhammaysto maalmalba golaha shacabka waa la furaya war haddaba bisha soon baa la fasaxayaa maxaa laga furaya war maysiina sheekh xasan daahir aweysaa live soo galay wuxuuna yidhi in canshuur la qaado ciidankuna mushaar waayaan xaq maaha xasan daahir ee taleefanadiyaa laga aruurshaa la dhahaya shimaal loo ogolaaday war maanta shir looga hadlayo awoodda maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ayaa qarafaan soo gabagabeeyaa la yidhi laakiin anugu hal talaan siin lahaa hadday wax maqlayaan inta madaxda maamul goboleedyada madaxweyne la leeyahay awood la xakamay karaa ma jirto ee magac la eg nimankaa loo bixiyo war reer kalma'an waa basiin layaabay fidhikudiriraatiina mas dawlad goonan dhisno walaa muwaaradayan etiin war sheekh bashiir axmed salaad waxa uu yidhi gabdhihii tiradii ay ka bateen ee guurka ha la badiyo kii hal qabaa ha labaysto kii laba qabaa ha saddexaysto kii saddex qabaan ha afaraysto eebagoo sheekh bashiir warkiisaas waa sharci waana diini xaasas badanna waa ka xanaaqayaan sheekh bashiir walfayle sheegay runtaw laakiin dadka bilaanta dhalan fii sabiilillaahi ka dhiiba erayhe war inta gabdhuhu leeyihin hoteel aroosa la iigu tumo meherkayguna waa 50 garaamo dahaba lama labaysa karo lamana saddexaysa karo war hablaha waa la muunadeeyaaye muunadeeya niyow xildhibaan la yidhaha nacnac oo ka tirsan somalilan wuxuu yidhi waxaan la midoobayna oo aan ku biiraynaa dawladda eritereya war yaa adiga kuu sheegeen nagaaba joogne war magaajaybaho nin nacleeri maskahaysino maskaha ariireetata meelaha iinkubatiana war eritereya la midooba etoobiya ma dhexdaa laga bixinaya madaxweyne xaaf xalay wuxuu magacaabay 10 degmo oo cusub oo galmudug ah waa tahay nin walba marka wakhtigiisu dhammaado degmooyinaan loo joogin magacaaba isinlay maari jarne habar dhali wayse alaale ku foolatay war odayaasha gobolka mudugaa nabad ku baaqaya maxay soomaalidu nabad kula adahay haddiiba gobolka mudug nabad looga baaqay arbeenay waarun dilad waalayin halay kala tawilay colaada nabad allaha idinkugu bedele